habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa waxa u daroon dawladda Kenya u diiday madaxweyne Farmaajo inuu ka dhoofo Muqdisho madaxweyne Xaaf oo ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre bam gacmeed ku qarxi doona dawladda Soomaaliya oo la wareegtay hub iyo gaadiid dagaal dawladda federaalka ee Soomaaliya oo shaacisay shirkad ay qandaraas u fulisay oo la shaqeey bilowday kooxda dam jadiid Soomaaliya beesha Sacad go'aan xasaasi ah ka soo saartay shirka dhacay Muqdisho xiisada galmudug ee beelaha ka gadoodiyay shirka dhuusan mareeb oo sii kordhaya iyo dacwad ka dhanah Soomaaliya oo loo gudbiyay qaramada midoobay daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa kuwada ugu door karoon haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube ka fadlan subscribe dheh oo guji gambalka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka daawadayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan dawladda Kenya ayaa diiday in uu ka dhoofo Muqdisho iyadoo si dadban diidmadaas ay madaxtooyada Kenya uga soo baxday waxa safar uu ku aadi lahaa dalka Rwanda ka baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii sida la sheegay cilad farsamo ay soo wajahday diyaarad ka qaadi lahayd garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho ka hor inta aysan isku dayin in ay ka duusho diyaaradan garoonka Aadan Cadde Muqdisho ayaa waxa lagu wargeliyay inaysan mari karin hawada dalka Kenya sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho sida caadiga ah markii diyaaradaha ay ka baxayaan dal isla markaana ay ku sii jeedaan dal kale waxa lagu wargeliyaa waaxda socdaalka ee dalka marinka ah markii ay madax ka gudbayaan arintaas kuma basi jirto waaxda duulimaadka Soomaaliya ayaa madaxtooyada ku wargelisay in Kenya ay diiday in hawada dalkeeda ay marto diyaarad u kireysneed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana markaas la isku raacay in la maro hawada dal kale balse waxa cilad qabsatay diyaaradii qaadi lahayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa markii ugu horeysay oo ay tilaabadan qaado Kenya waxayna qayb ka tahay xadgudubyada ay ku hayso Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa wali wada tanaasul iyo dulqaad maadaama Kenya ay wajahayso guul darooyin badan oo dhinaca sheegashada badda Kenya ay sheeganayso ee Soomaaliya leedahay dawladda Soomaaliya oo ka gudubtay xadgudubyo badan oo uga timid Kenya ayaa u aragtay in Kenya ay gacanta waxba ku haynin ay markeeda wajahi doonto guul darooyin badan oo ka dhasha dooda ay gelisay badda Soomaaliya taas oo hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ Soomaaliya wali kama aysan hadlin baaqashada safarka madaxweynaha ee uu ku tagi lahaa dalka Rwanda iyo go'aanka Kenya ee ah diyaaradda raaci lahaa madaxweynaha Soomaaliya aysan mari karin hawada Kenya balse waxa jiray qoraallo cudurdaar oo internetka isku dhaafsadeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Rwanda kuwaas oo lagu cadeeyay in cilad farsamo ay soo wajahday diyaaradii qaadi lahayd wafdigii Soomaaliya ee ku wajahnaa Rwanda madaxweyne Xaaf ayaa ku wareejiyay Khayre iyo Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya bam gacmeed ku qarxi doonta Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha galmudug oo qoraal uu soo saaray ku sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ku wareejiyay arrimaha dib u heshiisiinta iyo qabanqaabada doorashooyinka galmudug qoraalka oo Xaaf uu qoray ayaa ay ka muuqatay in uu ahaa mid lagu qasbay inuu qoro intuu Xasan Khayre joogay magaalada dhuusan mareeb ee gobolka Galgaduud qoraalka ayaa sidoo kale yimid markii Xaaf lagu wareejiyay lacag hordhac ahayd oo hore looga ballan qaaday in la siin doono lacagta yaa isugu jirta mid uu sheegay in lagu leeyahay oo tahay deen mid isaga loo siin doono sagootis ahaan madaxweyne Xaaf oo kulan la qaatay odayaasha ka soo jeeda beesha Sacad inta uusan soo saarin qoraalka ayaa uu sheegay in uu go'aan ka gaaray arrimaha galmudug isla markaana balaayadeeda uu iska xawilayo Xaaf ayaa yiri adeeryaalo aniga ayaa idinka aqaan galmudug waxaan ogahay balaayada ka soo socota deegaankaas iyo fashilka ay ku dambeyn doonto taas ayaana keentay in aan iska xawilayo balaayo lama haysto yiri Xaaf ayaa uga muuqatay in uu iska fogeeyo fashilka ka soo socda deegaankaas isla markaana uusan isagu doonayn in mas'uuliyadda uu qaado Xaaf ayaa u muuqda in uu Khayre iyo Farmaajo gacanta u galiyay bam gacmeed ku qarxi doona isagana uu iska baryeelay in uu dib u heshiisiin loo sameeyo beelaha deegaan galmudug waqtiga ay qaadan doonto waaba haddii la heshiiyo dhinaca kale way adkaan doontaa in Farmaajo uu ka dhigto galmudug sidii koonfur galbeed haddii uu taas ku fakarayana waxaan loo sheegayaa ayuu yiri mid kamid ah aqoon-yahanada iyo waxgaradka ka qayb galay kulankaas mid aanu ka suurgalin galmudug sidoo hadalka u dhigay beesha Sacad ayaa go'aan xasaasi ah ka soo saartay kulan ay ku yeesheen Muqdisho oo ku aadan arrimaha galmudug
xilli ay sii kordhayaan beelaha qaadacay shir la sheegay inuu ka dhacayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud. beesha saacadda habargidir ayaa go-aan ka soo saartay shir ay muqdisho ku yeelatay kaas oo ku saabsanaa xaaladda maamulka galmudug uu xilligan wajahayo. kulankan oo ay yeesheen waxgaradka beesha saacad ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa wadatashi dheer kadib waxay soo jeediyeen in la ilaaliyo dastuurka qaranka iyo kan dowlad goboleedka galmudug, dhinaca kale in la dhowro nidaamka federaaleynta dalka iyo madax banaaneynta dowlad goboleedka iyo dadkeeda hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka. beesha saacad ayaa sidoo kale sheegtay in 10 Julaay sanadkan 2019 la isugu yimaado shirweynaha aayaka talinta beesha oo ay qabaha kala duwan ee isugu jira dhaqanka, siyaasiyiinta, xildhibaanada heer qaran, heer dowlad goboleed, haweenka iyo dhalinyarada ka soo qaybgalayaan, kaas oo ka dhacay sida la sheegay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxa ugu dambeyn ay beesha ugu baaqday beelaha galmudug in ay iskaashi, dib u heshiisiin iyo midnimo uga gudbaan marxaladan adag ee dowlad goboleedka galmudug uu marayo si loo helo galmudug ka midaysan xagga siyaasadda iyo maamulka, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay kulan ay yeesheen xubno matalaya beesha saacad oo ka dhacay muqdisho. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo beesha reer Xaaji Saleebaan ay sheegtay inay qaadacsan tahay shirweyne dib u heshiisiin iyo doorasho la sheegay inay ka dhacayso magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay hub iyo gaadiid dagaal. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale la wareegtay hub, gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad ku sugnaa degmada Balambal ee gobolka galgaduud kadib markii halkaas ay gaareen xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ayaa maanta gaaray deegaankaas, waxaana si wadajir ah ula kulmeen xubno ka tirsan maamulka degmada Balambale iyo saraakiil horkacisay maleeshiyaadka ku sugnaa Balambale, iyaga oo la wareegay hub fara badan, gawaari iyo maleeshiyaad halkaas ku sugnaa. ciidamadan ayaa la sheegay in la qaramayn doono isla markaana lagu biirin doono kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka xoogga ee qaybta 12aad ee saldhigoodu uu yahay galmudug. sidoo kale taliyayaasha ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in dhowaan la diiwaan gelinayo maleeshiyaadkaas ayna heli doonaan tababaro dheeraad ah. arrintan ayaa qayb ka ah dadaalo xoogan oo dowladdu ay ku doonayso in lagu mideeyo galmudug laguna heshiisiyo beelaha dega galmudug. dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Khayre uu kooxda Al-Sunna kala wareegay ciidamo kuwaas oo si rasmi ah loogu daray kuwa xoogga dalka Soomaaliya. dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay sababta shirkadda Fafori loogu kordhiyay qandaraaska. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay sababta ka dambeysay in mar kale qandaraaska loo kordhiyo shirkadda Fafori oo gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Aadan ee Muqdisho oo laga leeyahay dalka Turkiga. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo faahfaahin ka bixiyay heshiiskan ayaa sheegay in dib u dhis ay shirkaddu ka sameyn doonto dhismaha garoonka Aadan ee Muqdisho. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sidoo kale sheegay in shirkadda Fafori lacag dhan 14 milyan ay ku maalgelin doonto garoonka Aadan ee Muqdisho, taas oo lagu horumarinayo adeegyada garoonka sidoo hadalku dhigay. waxa uu sheegay in shaqadan lagu qaban doono muddo 2 sano sida ku cad heshiiskan oo ay kala saxiixdeen shirkadda Fafori iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana lagu soo bandhigay kulan golaha wasiirada ay yeesheen. wasiir Omar ayaa intaa ku daray hadalkiisa in sababaha loo kordhiyay heshiiskan shirkaddan uu yahay in markii xukuumadda aragtay sida uu u kordhay duulimaadka garoonka Aadan caalamiga ah ee Muqdisho, taasna ay keentay in qandaraaska shirkadda loo cusboonaysiiyo. shirkadda Fafori ayaa laga leeyahay dalka Turkiga, waxaana dhowrkii sano ee la soo dhaafay gacanta ay ku haysay garoonka Aadan iyadoo garoonka hadda ay ku soo biirayaan shirkado diyaaradeed oo caalami ah oo ay ka mid tahay Qatar Airways. muddada ay shirkadaas ka howlgalaysay Muqdisho ayaa waxa isbedel xoog leh ku sameysay shaqada garoonka oo ay ku soo biireen shirkado caalami ah sida Turkish Air, Ethiopian Air, Air Djibouti iyo Qatar Airways oo toddobaadkii tagay ku soo biirtay duulimaadka garoonka Aadan ee Muqdisho. ugu dambeyntiina dacwad dowladda federaalka ee Soomaaliya kalena ayaa loo gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shaacisay in UN-ka ay u gudbisay dacwad kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan saxiixday heshiis muhiim ah oo ay kula wareegayso hawada Soomaaliya, sida laga soo xigtay wargeyska East African Business Week. safiirka Soomaaliland u fadhiya Kenya
baashe cawil cumar ayaa xaqiijiyay in Somaliland ay dacwad u gudbisay qaramada midoobay oo ay ka gudbisay dowladda dhexe ee Soomaaliya. baashe cawil ayaa sheegay in dowladda federaalka ay jabisay heshiis ay hore Somaliland iyo Soomaaliya u kala saxiixdeen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaas oo ku saabsanaa maamulka hawada Soomaaliya. danjire baashe ayaa waxa kale uu hay'adda ICAO ee qaramada midoobay qaabilsan maamulka hawada iyadana ku eedeeyay inaysan fulin heshiiskii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Somaliland ayaa si adag uga hadashay heshiiskaas ay dhawaan kala saxiixdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda ICAO kaas oo ahaa heshiiskii ugu dambeeyay ay dowladda Soomaaliya kula wareegayso maamulka hawada Soomaaliya, iyadoo heshiiskaas ku sheegtay inay ka dambeeyeen wadahadallo qarsoodi ah oo ay wada yeesheen dowladda Soomaaliya iyo hay'adda ICAO. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.